naftayda iyo ana heshiinay isbedelka nuurka ii shiday nalka garaadka iftiimay nolosha beentan ka guuri waxaan nici jiraan jeclaaday ku soo dhawow barnaamijka talada ardayga xalqadii shanaad ardayga iyo dhabar adeega suugaanta hore aan ku furfuray waa naftayda iyo ana heshiinay isbedelka nuurka ii shiday nalka garaadka iftiimay nolosha beentan ka guuri waxaan nici jiraan jeclaaday qofka ardayga wuxuu u baahan yahay dhabar adeeg qofkan qof u dhabar adeega himiladiisa ayaa raaxa ku gaadha marka qof kastoo ardayga ama qof kastoo guul raba guushiisu waa inuu asiga ay ka go'an tahay ma aha dhaqaalaha uu haysto ma ahan halka uu joogo ma ahan gogasha uu ku seexdo ma ahan gaadiidka uu saaran yahay laakiin hanka ku jiro iyo yoolka uu higsanaya iyo siduu ugu dhabar adeego ayay ku xiran tahay habka guushiisa u ekaan karto maansir oo dhahayo dulqaadi oo dhiman waayaha dharbaaxa imuu dhaliili karay adiga hayga dheeraan dhacdhacaygo isqabo adoo ka dhaqaaqay inaad qalad ku dhacdo garaadiho isdhisday boogahaago adoo dhaawicin dad samirka hortaada dhigo taana waxaan u soo qaatay qofka ardayga ah raba inuu hiigsigiisa ka dhabeeyo waayaha dharbaaxa duruufaha la dirsaaya isdhiibi waayaha oranaya marka asigana waxaa laga doonayaa inuu dhaho aniga maya ma geeyo inaan isdhiibo ma geeyo aniga inaan laabto ma geeyo caqabadaha i hortaagan inaan u joojiyo waxaan geeyaa sida ragga asaagayga ah ee horteeda guuleystay inaan sidooda si ka fudud u guuleysto marka dulqaadiyo waxa dhiman qof kasto dulqaadkiisa iyo dhabar adeegiisa wuxuu saameyn xooggan ku yeelan karaa habka uu guusha ku gaari karo waxaa jiro isbarbar dhiga dadka kale qofka bini'aadanka waxa uu sameysanayo ama nolosha inta heerka uu ka gaaraya kuwa adduunyada guuleystay oo wejiyada quruxda badan leh waa kuwa samaystay la tartamay naftooda challenge kula jiraan dadku ma mashquulsana qof kale ma fiiriyaan yoolkooda say ku gaarayaan fikradahooda say ku horumariyaan aragtiyahooda say ku balaariyaan say naftooda naf kale uga dhigaan waayo naftaada hebel baa la yiraa markaad wax ku dartana hebel bay noqonay marka ragga u kacay koonka karaamadooda noqo kabaha ruux kale sita adigu kaaga hamooday ragga u kacay koonka karaamadooda noqo kuwa jira guulaha qofka gaaray ama qofka waxa uu sameystay hebel kaalinta koowaad buu galay hebel sidaas buu ku guuleystay hebel sidaas buu noqday hebel bay faaleeyaan wayna fadhiyaan marka hebelkaas intaad faalee lahayd wuu guuleystay oo hambaliyay maasha Allah kiibga hore u soco laakiin aad ku fogaatid maaha adiga guula laga sugayay dhaqaaq la imaaw yoolkaaga iyo wajigaaga quruxda badan iyo dadka ku raaxaysanaya guusha inaad garab joogsato ama inaad garab dhaafto waxa laga sugayo waxa waaye waxa adiga hadda tahay inaad bedesho dhabar adeeg dhaqaalaha duruufaha waxaas dhan waa laga baxaa Nelson Mandela kamid ah adduunyada 15 sano u xirnaa fikirkii afkaartu qubay markuu soo baxay wuu dhabeeyay wuuna gaaray maanta wuxuu noqday leader laga aqoonsan yahay Afrikada iyo adduunyada dhan marka adiga maxaa ku diiday han kugu jiro inaad balaariso ugu yaraan arday shahaado imtixaan inaad ku baasto inaad shahaadada soo qaadato wax ka weyn arag waa gaaraysaa yoolkaaga anaa hubo marka naftayda iyo ana heshiinay isbedelka nuurka iyo shinalka garaadka iftiimay nolosha beentan ka guuri waxaan nici jiraan jeclaaday marka ugu dambeeyo oo yoolkaaga gaar waxaa laga rabaa naftayda iyo ana heshiinay marka isbedelkaaga sameey waa qofku sameynaysa male guushaada horumari qofku horumarinaysa male dadkaas ku eegin kuma eegayaan qofku joojin karta male guushaada adaa hebel u hebel iska dhig guushaada hebel ka dhig alaashaa hebel kale ma jeedi hebel ka dhig guushaada oo adiga is horumarin arday dhabar adeegaaga muhiim waaye arday dulqaadkaaga muhiim waaye arday baarinimadaada iyo kartidaada iyo isku mashquulka adiga sideen aniga hebel ku noqdaa sideen nafteedu ku horumariyaa wax badan bay ka bedelay waayo kuwa shalay guuleystay sidaas bay isdhaheen qolbi isu xiran way ciishadeen wax bay qoreen wax bay akhriyeen aragtiyadooda way leeyeen way strain gareeyeen development ay sameeyeen wayna guuleysteen adigna waa guuleysan kartaa guusha waa qof ila dhalatay male guul darrna qof ila dhalatay male wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh